dhacday is not accident waxyaalaha oo accident ku dhacay maahan marka waxa waaye cunuga leeyahay iskuul cunuga waxaan ka hadlayaa waxa waaye ma ahan calaamada cunuga waa loo wacay cunugayga 6 years uu jiraa waxa cunug kale oo asbaraas kala dhigto asagana 6 years oo jiro waa loo wacay waxa lagu yiri yaa ka heshay cunuga ka heshay ma galaaska uma dhigtaa cunugaygu juus karaystay oo maxamed amiin uu juus karaystay waa soo kacay markuu cunugii soo kacay waxyaabaha uga heshay sheeg uu yiri marka qoraalka ma ahan cunuga yarka qoray 6 years old qoraal ma qori karo kulliga waa wada ognahay macalimadda u qortay waxyaabaha ay ku hadlayso way isku aadaadisay muhiimadda aan ka hadlayo waxay tahay qaabka ay isku aadaadisay iyo qaabka ay calaamada korka ugu qortay iyo qaabka ay cunugii labada ilmood iyo ilmo marka ana kindergarten gabadheeda marka ay cunug kale akhbaarba u soo qortaa is normal laakiin waxa normalka ah waxa waaye in ayada qoraalka inta isku soo aadaadiso ay wax yar oo calaamad yar oo jacayl u soo dhex dhigto oo haddana calaamada rainbow waa ogna calaamad is just color way noqon kartaa laakiin markii loo baahdo oo pointiga laga hadlaayo colorkii kaliya ma noqon kartaa waxay noqon kartaa calaamad lagu cilmihiiba ilmaheena waxa la barayaa in calaamada normal ay tahay laba cunug oo isku genderna ay iska heli karaan galaaska dhexdiisana ka bacd markuu cunugii qoraalkiisa dhamaystay wuxuu cunugayga had buu soo siiyey wuxuu ku yidhi I will love you forever waxaan ka hadlaya markaan tagay galaan iskuulkii markaan tagay cunugayga waxaas uu ii keenay waraaqada soo siiyay baan was not accident waa dhiibaya waraaqadan is not accident maahay waraaqada ilmaha galaaska lagu qorqoray ilmahayga dadka waraaqadaha soo aruuriya waaye uu soo aruuriya subaxii markaa cunuga iskuulka u diraayo buugis markaa furaa waraaqadan ka dhexday markaan weydiiyana uu igu jawaabay iskuulka markaan tagayna waxaa lagu yiri waa just normal cunugi ilmaha way isdagaashanaayeen marka waa la heshiisiinayay marka normal ahayd calaamadan wax macnaa ma ku fadhiyo macnaha hadalkayga waxa laga soo qaaday waxaan waxba macnaa ku fadhiyo aniga marka intaasan ka hadlayo waxay tahay cunugeen ayaa ilmaheeni anaga waxbarasho aan u dirsanay already basic hoose ayaa laga soo dhisayaa cunugeeni inuu doorto oo janal kale uu jeclaan karo jacayl u qaadi karo waa galaaska hoose lagu soo baraya waxaan ka hadlayna waa midkaas Okay, so it says Mohammed at the top, and it says, I like your shirt and haircut. I like you as a friend and playing with you. I like having you in our lunch buddy group. I like how you are kind. She said, yes. I'm sorry. She said that our kids are getting injected at a young age. A teacher is doing this. She said, he's 6-year-old. I know he did not write this. She wrote it for them. She helped them decorate. She told them, who do you like in this group? And he picked my son. And she wrote the name Mohammed, and she put a heart in it. And then she put the rainbow colors. And then she wrote this message for them. You can tell a kid did not write. Mr. Belmont will follow up with the principal tomorrow. So we need to have those reports if you believe that a teacher is, as you shared, drawing that for your child. marka waxay tiri waxaa dabagalaya Dr. Belmont oo waxa wiil ku xiga oo haddana macallimiinta iskuulada mas'uulka ah marka waxay tiri waxaan kale markaa aragtaan ama idinku dhacdo noo soo gudbiya waan dabagalaynaa macallimiinta waxa kala sameynaya intaasaan rabnaaba anagu good way waa inta aan dabagalo السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدين كل يوم سلامتي وعليكم هتسنتين عاون وصبي كشان هيك كان عاون وحنا سوكي وقليلك عندنا لكن واحد باهتين إن مرة بسنا نوتي ماذا إن مرة بعروتنا ما عند رصعنا لكن مصيبة إذا ما تماذا كلية إن قيلنا مهمة هذا أدبان emotional لو أخي وأنا قلب كأنك إسكالي سنة أيام عدكود وجدوا سنين إنا نكتب هني عنا كنا إنا وجدوا سنة إنا عنو قاعد الله صعده إنا معلم كيس الله صعده إنا every day up to date قاعد أحاطه وعنو قاعد بورسني سوقتها قفوا صاحب كلية أدوقتها أدو صاحب لتها هو يوينا نهاي أبيالا نهاي مشغولا نهاي لكن واحد كم ذن ليش أدكو كنت ayaa annagana waxaan ka codsanaynaa iskuulka inay more education noo sameeyaan waayo waxaa yidhi been fakatay runima gaarto
dadka waxaa loo sheegay cirbadaa la duraya kan baa la yeelaya aqliga saliimka ah horta waxaas ma qabo laakiin runtu waxa ay tahay midda berri imanaysaa ka badan midda berri soo socota ayaa ka badan marka bil walba aabba haddaa tahay iyo hooyo haddaa tahay ubadka adigaa meeshaan keenay adigaana ka mas-uula raalli ahaada waan hadlaya waalidiintaan la hadlaya su-aashayda waan la imanaya because this emotional aad buu iiga buuxay aad ayuu iiga buuxay waayo hooyaan ahay aabbaan ahay wax walbaan nahay haddana saasay waxaan anagu dayacnay ayaan dad caawa kula qaylinaynaa waa qalad jaaniskaani ma anaan arag 10 hooyaa iman jirtay sidaad og tahay 20 hooyaa iman jirtay no walaalayaal waan idin baryayaa carruurteenna aan ahaano advocate-kooda ilmahaas waxaa advocate u noqday hooyadood iyo aabahood walaalkood ayaa u noqday advocate adiguna adigoo islaam sheeganaya ayaadan ubadkaagii ka jiiftaa iskuulka marka naloo kaga yeero oo ay tahay 3 biloodba mar ma tagtaan hal iyo labaa tegaysa cunugaagoo package wadaa kuu imanaya you don't know wuxuu u mudanayo marka annaga horta waxaa la yidhi xaasibu qabla an